السلام عليكم كسودو داود قيبت حتى معلوماتي كساب سنة بساسكي لبكار لا هرير مصر أشرف مروان qaybtii hore waxay inoo joogtay basaaska uga digay Israa'iil weerar kaga yimaada dhanka ay Masar qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa maxaa ku kalifay in Ashraf Marwan sirta dalkiisa uu ka iibiyo Israa'iil miyuu doonaa inuu noqdo nin taajir ah sida ay qortay jariirada The Guardian ila lagu kalsoon ayaa sheegay intuu ku guda jiray shaqadiisa basaasnimo uu ka helay Israa'iil lacag ka badan $3 milyan in Ashraf Marwan la shaqeeyo Israa'iil cidna ma diidi karin oo waayo xaaskiisa Muna Jamaal Cabdinaasir ayaa sheegtay in horaantii 2000 in ninkeedii markii hore uu dafiray inuu macluumaad u gudbiyo Israa'iil balse markii dambe uu qirtay inuu u gudbiyo macluumaad laakiin wuxuu ku andacooday inaanay sax ahayn gaasi oo isaga qudhiisa ahaa sirdoon Muusaad ayaa u muuqday nin difaacaya sharafta Ashraf Marwan xilli ay soo shaabaxday mashaqadii uu ka dhigay dalkiisa Masar waxa uuna yiri sargaalkan warkiisu ma ahayn mid la isku halayn karo sababta wuxuu degnin inay siiyay saacado ka hor markii Masar ku soo qaaday weerarka Israa'iil koodka ama baaqa afgaradka uu Ashraf Marwan kaga howlgeli jiray Israa'iil waxa uu ahaa anjel oo la micnaa malaa'ig haddaba yaa kashifay sirtii Ashraf Marwan Dr. Ahram Breman oo ahaa barakatir King's College oo ku yaala London qaybta daraasaadka siyaasadda una dhashay Israa'iil ayaa waxa uu dhowr jeer wax ka qoray arrimaha sirdoonka caalamka balse markan waxa uu helay xog safarkiisuna waa Tel Aviv caasimadda Yuhuudda waxa uu raadiyay la kulanka Eliezer oo ah sargaal Muusaad oo ay saaxiibo ahaayeen ugu dambeyn Dr. Ahram waxa uu helay xog dhameystiran Dr. Ahram Breman ma uusan rabin inuu kashifo sirta Ashraf Marwan oo waa uu qariyay magaciisa laakiin markii uu buugiisa qoray waxa ay ku noqotay sheekadiisa alxiraale iyo weydiin wareerisay wariyaasha Masar xilli Ashraf Marwan markii uu maqlay buug ciwaan looga dhigay Angel waa cusub ayaa u bariyay wariye Masar wax ka daabaca wargeyska Al Ahram waxa uu soo qaatay diyuurad markii uu maqlay sheekadaas xiisaha badan ee la qariyay magaca ninka jaajuuska ah waxa uu raadiyay Dr. Ahram Breman oo ay kulmeen waxa uu ku yiri ninka uu magac dartay sheekadiisa Angel ee aad daawacday ma Ashraf Marwan ma waxaad asuraysaa ceebtiisa ii sheeg la yaabka ayaa ahaa markii wariyaha Masar uu wargeyska ku soo xariiqay sheekadii Ashraf Marwan laakiin Dr. Ahram Breman oo ahaa macallinkii ka shafay sirtii Ashraf Marwan waxa uu lugaha la galay howl adduun oo markaan waxaa soo raadiyay sargaalkii Ashraf Marwan ahaa oo aad u careysan isagoo garaacay taleefanka loogu sheegay ninka sirta fashiliyay taleefanka markuu isku sheegay qofka uu yahay kadib Dr. Ahram Breman waxa ku noqotay walwal Ashraf Marwan oo aad u neeftuuray xanuun walwal iyo kurba isku biirsaday ayaa yidhi Dr. Ahram Breman waa ka xuma waxa aad samaysay halka Dr. Ahram Breman oo baqay coodarna raadinaya iska dhigay wariye qaldam ayaa yidhi wariyaasheena mararka qaar waxaan sameynaa qaldaad haddana waa ka murugoonaa waxaan ka xumaa adigoo xanuunsan sidaad ii sheegtay in arrintaas ku sii xanuujiso intii wada hadalka taleefanka socday Dr. Ahram oo isla hadlay isaga qudhiisa ayaa hoosta ka yiri waxa aad samaysay qalad weyn waxaad sababaysaa geeri qof inuu isdilo noloshiisa intii wada hadalka taleefanka uu socday waxaa lagu ballamay inay isku arkaan hotel lagu magacaabo Intercontinental Hotel oo ku yaala London balse durbabiba waxaa kulanka diiday Dr. Ahram oo xasuustay in Ashraf Marwan uu yahay sirdoon waliba ka qayb galay dilal badan oo hadduu doonana dili karo waxa uuna ku yiri maya ee inooga dhig Duchess Hotel hasi aatee Dr. Ahram isna shaki iyo cabsi ayaa ku dhalatay waxa uuna aaday hotelka balanta ahayd waxa uu galay albaabka isagoo jadiyeysanaya sida in la daba socdo waayo waxa uu bartan ka galay sheeko waaliya oo lagu dili karo kulanka waxa uu ku dhamaaday cabsi Dr. Ahram waxa uu ku fikirayaa ama uu ku dilaa Ashraf Marwan halka Ashraf Marwan uu ka cabsi qabo inuu duubo wada hadalkooda dhanka kale Samiir oo ahaa madaxdii ciidamada militariga Israa'iil waxa uu maxkamad la koray sargaalkii Seera ee Muusaadka ah ee fashiliyay sirtii basaaskii Ashraf Marwan waxaana lagu soo oogay khiyaano qaran iyo sharaf dhac ka dhan ah adeegayaasha Muusaad iyo inuu sababi karo in mustaqbalka dhow Muusaad ay wajihi karto laba kaarlayaal daacadnimada ka fog Muna Jamaal Cabdinaasir oo ka hadashay arrinta ninkeeda Marwan ayaa tiri markii uu maqlay Ashraf Marwan sheekadan maalintii kood waxa ka dhacay 10 kiilogaraam oo culays ah wuxuu ii oran jiray markasta waa la idilayaa iga xil albaabka iyo fiiri daaqada iyo walwal badan oo u sii biirsaday xanuun maskaxeed June 26 Ashraf Marwan waxa uu cod fariina moobilka gacanta ugu dhaafay Dr. Ahram laakiin hal maalin kadib waa uu geeriyooday haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay yaa dilay Ashraf Marwan xilli habeena Ashraf Marwan waxa uu ku sugnaa dhisme gurigiisa u jira 100 tilaabo oo dabaq ah
biyaanada shanaad ayuu mar keliya ka soo dhacay lamana yaqaano in la soo tuuray inuu soo dhacay balse waxaa dilkiisa lagu eedeeyey sirdoonka muusaad kadib xiriir daacadnimo oo uu la sameeyey dhakhtar ahram qoraa iyo macallin ku xil dheer siyaasadda iyo sirdoonka si uu isna markiisa ula wadaago xog xaaskii ashar marwaan amuna jamaal cabdinaasir oo ka hadashay dilka ninkeeda ayaa tidhi ninkayga waxaa dilay muusaad sababta ah guriga xitaa waxaan ka waayay xasuus qorkiisii yaraa haddaba daawada intaas waxaan ku afmeerayaa barnaamijkaan oga hadlayay ashraf marwaan tan iyo intaa ka kulmi doona barnaamijkeena xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo